gaarigani oo ahaa mid waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa barqanimadii maanta waxa uu ku qarxay meel aan sidaasi ugu fogeen isgooska Digfaar ee magaalada Muqdisho. Qarxaani ayaa ahaa mid jugtiisa si weyn looga maqlay inta badan magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Gaariga intuusan qarxin ayaa la sheegay dadka deegaanka inay ka shakiyeen isla markaana ay ku wargeliyeen ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya in gaarigaasi ay gacanta ku dhigaan. Inkastoo markii ay soo gaareen ciidamada dowladda Soomaaliya wadaha gaarigaasi waday lagu amray inuu joojiyo balse uu ka dhaga adeegay waxaana rasaas ay ku fureen ciidamada dowladda Soomaaliya uu gaariga halkaasi uu ku qarxay. Qarxa waxaa ka dhashay khasaare soo gaaray dad shacab ah iyo sidoo kale wadihii gaarigaasi waday oo halkaasi ku geeriyooday. goobta uu qarxa uu ka dhacay waxaa xiray ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya inkastoo markii dambe dib loo furay. qaar ka mid ah dadkii goobjooga u ahaa halka uu qarxa uu ka dhacay ayaa warbaahinta la hadlay. maxamed axmed warsame ka mid ah dadka mataqaanaa dukaamadan mid ka mid ah saaka markay wax dhacayeen meesha aniga waa jiifay gabar yar oo mataqaanaa wax doonayay soo garaacday way ka cisay booliska kadib yimaado waxay dhaheen meesha qarxa yaal baabuur hortaada yaalo ee ka bax saas uga baxay alaabtiina meesha kala bixin dibkaana gaar hadda burburkaan u jeedin gurigiina sidoo kale u baabaasan yahay isagan mataqaanaa inta loo iga xigaa isagan marka waa saas wax noo gaareen wax oo qasaar maaliyad warnaa waxaan tiidna jiro saameyn ma dadkii mataqaanaa badana xaafadda waa laga saaray burbur dadeed la jiro mataqaanaa dadku kunta way yaryihiin ilaa dadku badbaadiyay adiga maxaa aragtay inta aad meelaha joogtay wixii dhacay ogaantaada baabuurka qarxa mataqaanaa oo meesha baakinaa iyo dadkii meesha ka saarnay dhamaanteen ay anagoo ku wada fogaana leebis wax kale culeys ma jiro. dhinaca kale rag la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin al-shabaab waxay weerar ku soo qaadeen bar control ciidamada dowladda Soomaaliya ay ku leeyihiin isgooska Sebiyaano ee magaalada Muqdisho. laba nin oo la sheegay inay wateen dharka ciidamada militariga ayaa ka degay mooto bajaaj xilligaas ay saarnaayeen iyagoona rasaas ku furay ciidamadii halkaasi ku sugnaa waxaana halkaasi ka socotay rasaas muddo saacada u dhaxaysay dableedii hubeysnaa ee ciidamada dowladda Soomaaliya inkastoo markii dambe labadii weerarka ku soo qaaday ciidamada dowladda Soomaaliya ay galeen masaajid halkaasi ka agdhawaa inkastoo markii dambe halkaasi lagu toogtay. mana jirto ilaa hadda wax war oo ka soo baxay saraakiisha ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya oo ku aadan weerarkaasi iyo khasaaraha ka dhashay intuu leeyahay. magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maalmahan waxay u muuqatay mid degan waxaana ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadeen howlgallo amniga ay ku xaqiijinayeen waxaana weeraradii maanta Muqdisho ka dhacay dush u ritay inay ka dambeeyeen ururka al-shabaab. Cabdiraxmaan Waaberi, Som News, Muqdisho.